wadani maxay kula tahay xalka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay haloo fadhi xumaanine maxaa maanta haysaan oy had intay ka soo roortay saamaxa ugu dhidido saayonkan illa berbera soo cararay war ixtiraaf intuu raadinayo daalay hal yaabina warnimada warkiina waa la duubayaa tartiib oo hadla warwariye maxamed cali maana dhax fadhiya asaga wax walba duube war ka tirada badan intii iska dhaaftan turubka big halku bilay era war turubka iyo dollarkaadan kala aqoone waxa ra'iisul wasaaruhu idin siiyay lacag bay ahayd warniyow dadka beenta ka daa lacagta Soomaaliya kuna u weyn kuna u yare walaadar haday idinka dhab tahay ra'iisul wasaaraha aad sheegaysaan annaga ixtiraafana siiyo war qowdana war ma haysido Soomaaliland warbaahinta waxay ku amartay in wararka Soomaaliya ku saabsan qaybta wararka dibadda lagu daro meesha u dambaysa la geeyo marka kalamaan maanta kadib warkaagu waa wararka dibadda meesha u dambaysa ku jira adeer hangoolka galmudug kalamaan ana ka mudan war ma haysiina maanta General Maxamed Cabdilla Dhoore qarax gaariga loogu xiro ku dhaawacmaa la yiri raadiyo kulmiyana waxaan ka maqli jiray gurigaaga markaad ka baxayso labada dhinac iska fiiri gaarigaagana intaadan gelin xaqiiqi hoostiisa marka qadarta rabbi lama celi kare dadaalku waa mahuraan markastana dad baa nool oo caafimaad qabe halla salaamo naqsado war waan daba joognaa ma la yiri war cambaareen iyo waa la daba joogay waa baareena maaraya dawladdu xil saarna asaga suweena war ma waalan tahay maxaa la baarayaa qaraxi waaba dhacay meeshina waa la xaaqay war bugtu markay maanta yeertay suuriya dawliga loo ekaaday laakiin Axmed ay waasac meel qaridu way war jugta aad sheegayso dalaal ma maqlin muxuu dhuntaa war ma haysaane magaalada kontaroolada lama mari karo oo waxa la leeyahay baabuur qarax sida magaalada ku jira warnimahan waa yaabay kuwa sheegaa ma soo qabtaan war suuqleyda sheegtay warka naga dhaxgil laakiin waxa igu daran wadada aada kilomitir 0 ciidana juba fadhiya kala wareegay kuleeyeen war waa socdaay maxaa dhacay ibaara marka tira waxay kuleeyeen Fahd Yaasiin waco markaad beexaani ka timaado sidoo kale kuleeyeen Fahd Yaasiin waco markaad liida ka timaado waxay kuleeyeen Fahd Yaasiin waco marka waa yaabe Fahd saraakiil ka hooseyso ciidanka amarta miyaan jirin mase ciidan gadoodo Fahd iyo bulshada isku diraya oo adigu kilomitir 0 hadaad joogtid ka shishay maxaa ka doonaysaa ma soo laabatay wadaba kama shishay warrinka waa la yaabay waduu ka hadlaya aniga guriga hortiisa in dhagax dhigay ali Fahd Yaasiin waxa oy aan waxa ka yaabay falartan oo kalama oo iniste minkiis wadami dhagax maxagee warnimayaanu talan wada haddaan leega qaadanaan kadib leega helay warniyo ma 40 kiibad ku jirta adigu waa talo soo jeedinta tala bayna leeyin war waa kala hufkiin iyo kala haadintiini war ana kala haadin hadad bilaayna soo dirtay war talada hayga dhaxgeelin ana soo jeedinaye waxaan kula talinayaa shacabka iyo dawladaba Kenya girifteeda badata waayahane xuduudda naga dhaxaysa bad iyo biriba inaan dhagax ku wareejino war dagoonka kana dhagax wal mareeba dhuunshilka adeegsanaan war madaysa qawaad waaran tahay dhagax aan nafteena ku aaminay miyaan dhulku aamini weyn talada laga qaad warniyow talo humaanta may baa ka hasuusaday xilibaan dalaha maalin dhawaad soo qudbayo ma aray talo huma antii unu ka qabna afgoya warshada dhagax ka soo bini gaalka aynu warshada galeeyta ka soo bini ki talo huma war waa talada ugu wanaagsaneed sababtoo ah reer gaalkacay waxay u baahan yihiin galeey reer afgoyna waxay u baahan yihiin dhagax waa shaqaysleedarsi war qoro walba waxay u baahan tahay hadii loo keenayo da annagana wabiga noo soo faruura oo na soo gaarsiiya qowdana wabaha basan baahantin boodboodka daga walaxsin wareejiyay war qowdano muuse bixi waxaad ka soo dhamaysaa wabi ixtiraaftii daran war ma haysiine ra'iisul wasaare khayre waa markii uu horeeyay tala mucaarad qaato meeqalkii leeyahay haddar yuusan ka noqonin mucaarad taladiisa qaadataa dheenina war ka noqon maayo waa ku dhawaaqay naga dhageysta warka saxiix miyaad ka haysaa saxiix warnimiya war dawli wargada ka qoranya leeray wargadi walka haayahe war madaxda warkooda dikireetaan naga dhageysta madaxdaana mise tii hore war hadii war madaxda dikireetan yahay dikadahood ma la dhisay war maqaan madaxweyne dhada ceel caana qodayna war taas madaxweyne farmaajo sheegay oo yiri siyaasadu been maaha iyo qiyaano iyo ballanka bax war ilaahay taa ku cagaabi maayo war anu madaxweyne
madaxweynaha idinba sheegin naga dhagaysta ra'iisul wasaaraha warkiisa war isagaa ka wakiilay xageed u kala wadaa waa tii cabdiraxmaan cabdishakuur yiri war ra'iisul wasaaruhu waa inuu magdhow ka bixiyaa dadkii baydhabo lagu dilay markii maamulka la dhisayay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday inuu dadkaas magdhow ka bixinayo mukhtaar roobowna soo daynayo widaaye enerjigan isku dhamayto aragtidii hore urbeelay haddana lis aragaya waa la eri war ra'iisul wasaare laga sugay inuu maxaanka soo xiro miyuu keenaa masuuran sii dayna war waxba la sii dayn maayo waa ballantii maday mursal ka soo qaado kale iska daa war tafaanyadaas hadda ka doonba mayna geliyo abadan gudoomiyaha baarlamaanka maday mursal in lafta gareanga meereen hoob roobow hadhiye waayna xukunkaana baaddalangu waana sidii oo aan fidhiyan war shariif xasan shiqaadan wuxuu yidhi hadda ka hor gabdhaheenu ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ma dhalaan miyaa gudoomiye baarlamaanka limay dhalaan aw shariif hatta musharax eeya madaxweynihi nagadooyhe war ordo adeer meesha lagu kala xakayo waxba meesha kuma haysan beer kale idinku lufayay war laga tag ictiraaf lagu musiye ha habaarin idam alla la hele ha uga dari baa la gaaray markii xishooda ka tagi jirteen baa la gaaray war yaaya abniga war abniga ma dhoosho war yaaya abniga laga taga ilaahay haydan badbaaje ilaahay ictiraafkayga noo rumay xishooda dalkiina u shaqeeya war Allah idin dhowreene laga taga war lagu kala wada iimaanka Allah idin toosiye